بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa nuxurka wararka kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble oo ku dhawaaqay in farmaajo uu caqabad ku yahay doorashada mudan yahana in laga hortago. Barnaamij wareedka iyaga ayaad ku daawan doontaan hadduu Rabweyne qadaro. Taliyaha ciidanka badda oo lagu amray in uu dalka ka bixi karin ilaa amar dambe. Asigoo hore ugu gafar ra'iisul wasaaraha dalka qaramada midoobe oo war ka soo saartay xerada terminalka garoonka aadan cadde iyana waa daawan doontaan qodobada iyo qodobadii nagu soo kordho ayaad barnaamij wareedka iyaga ku daawan doontaan. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe inoo saar muuqaalka gare oo saaxiibadaada la wadaag si aan u helno saaxiib sidaada oo kale u niyad wanaagsan qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf waa inoo muhiim markana ku soo dhawaada qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. haynu ku bilownay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadaladii ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu uu dhamaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Roble ayaa sheegay in musharax gaar ah laga yeelan doonin in uu ku takrifalo doorashada Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu aad ugu xun yahay qoraalka saake aroortii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee waqtigiisu uu dhamaaday. Qoraalkaasi waxa uu ahaa mid si ku talagal ah uu madaxweynuhu ugu carqaladeeyay hanaanka doorashada dalka oo maraya marxalad xasaasi ah. sida ka muuqata waqtiga lagu soo beegay qoraalkan oo ahaa xilli loo balansan yahay kulanka golaha wada tashiga qaranka oo la doonayo in lagu dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyo ilaalinta hufnaanta doorashada. waa qorshe uu madaxweynuhu ku doonayo in uu ugu hortago kulanka golaha taasi oo si cad u muujinaysa in aanu madaxweynuhu marna raali ka noqon kana noqon doonin in dalkan ay ka dhacdo doorasho ay ku kalsoonaan karaan bulshada Soomaaliyeed. waxaan la wadaagayaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in madaxweynuhu inta uu xafiiska joogo uu waqti, maal iyo maskaxba ku biirinayo sidii uu ku sii joogi lahaa xafiiska isaga oo isku dayaya in doorashadu ay noqoto oo kaliya mid ka jawaabaysa doonistii ama wadada u xaarto muddo kororsi sharci darro ah. tan iyo intii ra'iisul wasaaruhu la wareegay hogaaminta howlaha doorashada madaxweynuhu waxa uu si joogto ah caqabad ugu ahaa hirgelinta doorashadii lagu heshiiyay isaga oo isticmaalaya xeelado kala duwan kuwaasi oo markii midba la xaliyo uu buriyo midda kale. waxaa xusid mudan in doorashada uu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu ay tahay mid ay u siman yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan musharaxiinta u tartamaya hoggaanka dalka uu ku jiro madaxweynuhu. sidaas daraadeed lama aqbali karo in musharax gaar ah oo isku dayo in doorashada ka dhigo mid uu natiijadeeda ku leeyahay saameyn gaar ah. haddaba waxaan shacabka Soomaaliyeed u cadeynayaa in mas'uuliyadda doorashadu ay saaran tahay ra'iisul wasaaraha iyo golaha wada tashiga qaranka. sida awgeed shirka golaha wada tashiga qaranka ee uu cilaamiyay ra'iisul wasaaraha ayaa ka qabsoomaya magaalada Muqdisho sidii uu ku talagalka ahaa. ra'iisul wasaaruhu waxa uu wada kulamo aragti wadaag ah uu la leeyahay bulshada rayidka, golaha musharaxiinta iyo beesha caalamka si loo dhageysto talooyinka la xiriira hufnaanta doorashada iyo dhameystirka golaha shacabka oo waqtiyeesan kuwaasi oo lagu dhameystiri doono kulanka golaha wada tashiga qaranka ee qorsheysan. ra'iisul wasaaruhu waxa uu la socodsiinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka in la joogo xilligii si wadajir ah looga hor imaan lahaa shakhsiyaadka caqabada ku ah nabadda iyo dawlad dhiska Soomaaliya si looga baaqsado in uu dalka galo qalalaasa siyaasadeed iyo mid amniba. ugu dambeyntii ra'iisul wasaaruhu isaga oo gudanaya waajibaadka qaran ee uu siiyay dastuurka ku-meel gaarka ah raacayna heshiisyada siyaasadeed ee awoodda u siinaya hogaaminta doorashada iyo amniga waxa uu u ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed isaga oo kaashanaya golaha wada tashiga qaranka in uu xooggiisa isugu geenayo dhameystirka doorashada iyada oo la ilaalinayo hufnaanteeda maadaama xalka kaliya ee u furan qarankan ay tahay doorasho horseeda in awoodda loogu kala wareego si sharci ah oo nabdoon. dhinaca kalena wasiirka amniga Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa ku amray hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya in aanu safar gelin sargaal lagu magacaabo Cabdilxamiid Maxamed Dirir oo ah taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed. wasiirka amniga ayaa sheegay in taliyaha ciidamada badda uu qorsheynayo in uu
dalka ka baxo maadaama loo haysto xadgudubyo uu kala kacay madaxda qaranka. Sidoo kale wasiir Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in taliyaha ciidanka badda loo haysto hanti ay leeyihiin dad shacab ah isla markaana loo hayo cadeemo ku filan uuna diiday in uu soo wareejiyo. Amarka ka soo baxay wasiirka amniga ayaa ku soo aadaya xilli guddi loo saaray in ay baaraan hadalkii dhowaan uu sheegtay taliyaha ciidanka badda ay go'aamiyeen in uu ahaa hadal sharaf dhac ku ah madaxda qaranka isla markaana ay ku baaqeen in xilka laga qaado. Si kastaba guddigaasi ayaa inoo shaacinayo natiijada baaritaanka. Waxaan ka hor istaagayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage oo fila Soomaaliya ay gadaal ay ka riixayso. Sidoo kale warqadan ka soo baxday wasiirka amniga ayaa ku soo aadaysa xilli uu khilaaf culus soo kala dhex galay madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble. dhinaca kalena warar ka soo baxaya qaramada midoobe gaar ahaan xafiiskeeda Soomaaliya ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa looga hadlayaa go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku xirtay terminalka garoonka diyaaradaha Aadan Cabde kaasi oo adeegsan jirta qaramada midoobe Amazon iyo safaaradaha reer galbeedka ah. Qaramada midoobe ayaa shaacisay in ay aad u ixtiraamayso go'aamada dawladda Soomaaliya isla markaana ay u shaqeynayso si waafaqsan heshiisyada labada dhinacba. In qaramada midoobe ee Soomaaliya ugu shaqeynayso iyadoo si buuxda u ixtiraamayso sharciga Soomaaliya iyadoo la raacayo shuruudaha heshiiska howlgalka iyo heshiisyada kale ee quseeya oo ay kala saxiixdeen hay'adaha qaramada midoobe ee lacagaha barnaamijyada iyo sidoo kale axdiga qaramada midoobe iyo axdiga xuquuqda iyo xasaanada ee qaramada midoobe ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobe. Sidoo kale waxay intaasi ku dareen inay aad ugu xun yihiin xiritaanka terminalka Aadan Cabde oo ay sheegteen in aanan wax wada tashi ah laga sameyn ka hor go'aanka ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan si dhab ah u qaadanaynaa walaac kasta oo ay dawladda federaalka ka muujin karto howlgallada qaramada midoobe waqti kasta, waxaana ka xunnahay in tilmaamaha xiritaanka si lama filaan ah loo soo saaro oo wada tashi laga sameynin. Qoraalka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya eedeemo aan weli si faahfaahsan loogu soo bandhigin qaramada midoobe si loogu sameeyo baaritaano. Ugu dambeyntii qaramada midoobe ayaa xustay in ay sii wadi doonto wada shaqeynta dawladda federaalka isla markaana ay ka qayb qaadan doonto caawinta dadka Soomaaliyeed. Qaramada midoobe weli wax go'aan oo iskaashi ay la yeelato Soomaaliya. Qaramada midoobe weli waxa ka go'an iskaashi ay la yeelato Soomaaliya iyo in ay sii wado caawinta dadkeeda in si kastaba oo ay jiraan carqalada dhanka shaqaalaha ayaa markale lagu yiri war saxaafadeedka. Jawaabta ay bixisay qaramada midoobe ayaa ku soo aadaysa maalmo kadib markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay xirtay terminalka garoonka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho iyadoo eedeemo u jeedisay qaramada midoobe Amazon iyo reer galbeedkaba. Isla wararka iyaga ayaa daawanaysan markana siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa soo saaray qoraal xasaasi ah oo ugu falcelinayo talaabadii ugu dambeysay uu qaaday madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa marka hore shaaca ka qaaday in go'aan ka soo baxay Farmaajo uu yahay nabar la filayo naxdin ma leh sida uu hadalka u dhigay. Inqilaabka Farmaajo waa nabar la filayay naxdin ma leh ayuu qoraalkiisa ku yiri musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Sidoo kale waxa uu falcelintiisii ku soo koobay ilaa iyo 5 qodob uu kaga hadlayo arinta Farmaajo iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Waxa uu kale oo hoosta ka xariiqay in awoodda dhameystirka doorashooyinka uu leeyahay ra'iisul wasaare Rooble maadaama uu Farmaajo uu ka dhamaaday muddaxileedkiisa. Ra'iisul wasaaraha ayaa leh awood xilka gaarsiin ah ee ay ugu horeyso dhameystirka doorashada iyo amniga dalka, waana in uu xilka hayaa ilaa iyo inta doorashada ay ka dhamaanayso madaxda qarankana lagu dooranayo. Ayuu markale sii raaciyay inqilaabka Farmaajo waa nabar la filayo naxdin ma leh. Waxaase u baahanahay inaan isla garano 5 qodob. 1 inuusan Farmaajo dalka madaxweyne ka ahayn 10 bilna oo xafiiska sharci daro ku fadhiyay ayna tahay in uu ka soo baxo fila Soomaaliya. 2 golaha wada tashiga qaranka waa uu shiri jiray Farmaajona shaqo kuma lahayn shirkooda. 3 sixitaanka iyo socodsiinta doorashada waa howl
madasha uu ra'iisul wasaare Rooble hogaamiyo u taalo. 4 muddo xileedkii golayaasha dawladda waa uu dhamaaday. Aqalka sare waa la soo doortay. Golaha shacabka ayaa dhiman. Ra'iisul wasaaraha ayaa leh awoodda xilka gaarsiinta ee ay ugu horeyso dhameystirka doorashada iyo amniga dalka, waana in uu xilka hayaa ilaa iyo inta doorasho ka dhamaanayso madaxda qarankana laga dooranayo. 5 shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho waa inay ra'iisul wasaare Rooble garab istaagaan, gaashaana u noqdaan si wadajir ahna ugu hortagaan dhagarta uu farmaajo maleegayo, isagana qabtaan calooshood u shaqaystayaal uu adeegsanayo. Guud ahaan wanaga inta qodobadii aad ka daawanayseen bartaan YouTube-ka inuu ku leenahay ee nuxurka wararka. Waxaan mar kale idin la wadaagayaa inaad channelka subscribe inoo saartiin, muuqaalka like gare oo saaxiibadaada la wadaag si aan u helno saaxiib sidaada oo kale u niyad wanaagsan. Mahadsanid qaybta hoose ee comment-ga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf. Waa inoo muhiim balse daawada inta laga gaarayo muuqaalkan kiisiga Rabbi idinkii nabadgelyo.